السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. isu soo noqod wanaagsan daawadayaal. Waa Saad Cabdirasaaq Yacquub Channel. Weli waxaynu ku dhex jirnaa casharradeeni barashada QuickBook. Casharkeena sagaalaad ee maanta waxaynu ku soo qaadan doonaa receiving payments. Waa habka aad u xarayn lahayd lacago deyn ah oo kaa maqnaa oo lagu keenay. Qof macmiil ayaa deyn kaa qabay, deyntii ayuu keenay. Qaabka aad u xaraysan lahayd ayaynu baranaynaa maanta. Si deyntaas aynu u xarayno waxaynu tegaynaa QuickBook markaad tagto qaybta waxaad gelaysaa customer markaad gasho waxaad ka dooranaysaa receive payments. waayahay aynu aragno receive payments. waa ka receive paymentigan waxaa loo isticmaalaa in deymihii kaa maqnaa ee lagu keenay aad xaraysato adoo isticmaalaya qaybtan receive payment. waayahay aynu gudagalno customers receive payments ayuunu dooranay. markaad doorato receive payments halkan waxaad ku qoraysaa qofka deynta kaa qabay ee kuu keenay. casharadani hore ee creating invoice waxaynu ku soo qaadanay qof macmiil ah oo aan deyn siinay. deyntii aan siinay wuu noo keenay oo kale tusaale ka soo qaad deyntii ayuu noo keenay. halkan ayaynu furaynaa. halkan aynu aragno qaybtan ayaad furaysaa oo ay ku qoran tahay received from. lacagtan waxaa laga qabtay ama keenay qofkii macmiilka ahaa. inta aynu furno Ibrahim Aadan Cali ayaa wuxuu qabaa lacago deyn ah. markaad Ibrahim markaad ku dhufato halkan wuxuu kuu soo dhigayaa lacagihii uu qabay. Ibrahim wuxuu qabay lacag $530 ah saad halkan uga jeedaan. aynu bixina marka lacagtaas. waaya halkan ha iloobin inaad tig saarto. halkan tig baad saaraysaa. markaad tig saarto lacagihii dhammaan hadduu wada bixiyey sidoodaad ku daynaysaa. marka waxaad leedahay save and close. lacagihii wuu bixiyey Ibrahim lagu lahaa. save and close markaad doorato lacagihii sidaas ayay ku xaroodeen. aynu aragna marka qaybtii bankinka ama reportska aynu galno company and financial ayaynu dooranaynaa. markaasaan waxaan ka dooranaynaa balance sheet standard markaad doorato halkan hore waxaa u tiilay receivable lacago kaa maqnaa oo aad sugaysay oo deen ah ayaa halkan yaalay. laakiin hadda waxay ku soo darsantay undeposited funds. aad u jeedaan 2,000 ayaa taala. horey lacagta 2,000 ma dhamayn waxaa ku soo darsantay marka $530 oo amount receivable ahayd. lacaga kaa maqan oo deen ah oo aad sugaysay ahayd. marka qaabkaas ayaa waxaynu u xaraysanaynaa sida lacagihii kaa maqnaa aad u xaraysan lahayd. habkan ayaa loo sameeyaa. marka casharkeena maanta halkaas ayuu ku ekaanayaa. maanta waxaynu qaadanay lacagihii kaa maqnaa ee deynta ahaa saad u xaraysan lahayd. asxaabteena hore ee nala jirtay ama nala socotay aad bay u mahadsan yihiin. asxaabta nagu cusub ee na daawanaysana iyagana waxaan ka codsanaynaa inay page-ka subscribe saaraan oo ay la wadaagaan asxaabtooda. aad iyo aad baad u mahadsan tihiin. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.